maan hay-adaha dowladda galmudug qaybooda kala duwan xubnaha heer federaal ka jooga senatarada guddoomiyaasha iyo maamulada degmooyinka ururada bulshada rayidka ah marti sharafta dhalinyarada dhammaan gabdhaha qaybaha kala duwan ee bulshada caawa looga soo qayb galay munaasabadan ama xafladan qof kasta magaciisa iyo mansabkiisa iyo xilkiisa aan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib oo mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha si gaara waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee caawa noo qabatay munaasabadan aad iyo aad muhiimka u ah oo dowladda galmudug runtii ugu fadhisa qiimo aad iyo aad u sarreeya ama qiimo badan muddana la sugayey caawana ay ku guulaysteen ama lagu guulaystay iyaga iyo wasiiradii iyo hay-adihii u xil saaraa inay soo bandhigaan runtii waxay noo tahay fursad la wada sugayey waxay dadka reer galmudug dhammaan degmo dowladda galmudug degmo ilaa tuulo ay u tahay fursaddii ama wakhtigii la sugayey ee ay go'aamadooda iyo taladooda ku heli lahaayeen ama ku dooran lahaayeen danaha iyo serviska iyo maslaxada ay leeyihiin hanaanka dowlad adeejinta waxaad wada og tihiin nidaam iyo dowladnimo iyo horumari kama horeeyo haddaan la helin serviskii dowladdu ay lahayd ama ay helaysay uusan meesha ugu hooseysa bulshada gaarin uuna ku gaarin wax ay talo ku leeyihiin cod ku leeyihiin doorasho ku leeyihiin haddii la yidhaahdo annagaa go-aanka waxa aad u baahantihiin idiin soo gaarnay annagaa idiin naqaano baahidiinna annagaa kor idinkaga keennay sidaas waxba kuma qabsoomin wax weynna kuma soo bixin sida ay wax ku soo bixi karaan oo saxdahay waxa weeye inay doortaan serviska ay u baahan yihiin oo ugu habboon markay doortaanna uu soo gaari karo isagoo maraya nidaamka iyo shuruucdii loo dejiyey waxaan rabnaa inuu si dhaqsaa insha allah u hirgalo loo dadejiyo serviska wasaaradihii iyo hay-adihii aan u xil saarnayna ay si dhaqsaa u dhaqaajiyaan haddii ay jirto sharciyada dowlad adejinta wax ka dhiman horey waa hubaa in loo ansixiyey in badan oo ka mid a haddii jirto in ka dhimanna hay-adaha ama wasaaradaha ay jiraan dhaqsa inay u keenaan usoo diyaariyaan si loo ansixiyo oo ay qayb uga qaataan dowlad adejinta ma la heli doono sabab dambe oo caawa ka dambaysa oo aan loo fulin hanaankaas oo aan loo daboolin baahidaas oo aan loo gaarsiin serviskaas meesha ugu hooseysa ee si nidaamka iyo shuruucda ay sheegayso inay gaarto kuna gaarto qaabkii loo qorsheeyey ama sidii uu sharcigu ahaa ilaahay fadligiis dowladda galmudug meel inay wax gaarsiiso ama ay serviskii loo baahnaa gaarsiiso ama la daadajiyo dowladnimada caqabadi ka haysato waa dhulka ay muddada dheer argagixisadu ay gacanta ku haysay iyadana sidii la sheegay rajo fiican baan qabnaa inay gacantooda ka baxdo cadowgaas muddada ku nagaaday waxaan haysannaa masaafo dheer iyo dhul ballaaran oo aanay haysan dowlado badan oo dowladda federaalka xubnaha ka ah ay ka mid yihiin oo maanta ay galmudug si buuxda u maamusho masaafo aad u dheer ah inaan taas gaarsiino la daadejiyo si buuxda looga hirgeliyo wax weyn
oo aan runtii la wada haysan weeye oo ay tahay inaan maanta jaaniskaas iyo fursaddaas laga faa'iidaysto lagu wada faa'iideeyo bulshadeenna inta yar ama inta ay naga haystaan argagixisadu sidaan sheegnayna nolosha iyo servicekii dowladnimadu uu gaaro oo aan ka xorayno gacanta cadowgaas manaxaanka ah ee muddada ay ku jirtay waxaan leenahay hay-adihii baa ku celinayaa mar kale maantay waxaa la sheegay hal degmo oo ka mida degmooyinka dowladda galmudug inuu dhulka gaalkacyo ilaa iyo dhoobley ay mar ka ahayd halka degmo oo ku jirta barnaamijka GBLJ waxaan rajaynaynaa muddo kooban gudaheed annagoo iskaashanayna gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha hal degmo oo galmudug ka mid ah hadday tahay kuwii hore degmooyinka u ahaa iyo hadday tahay kuwa hadda aan meel marinay iyo kuwa aan meel mari doonno in loo sameeyo aysan jiri doonin degmo aan golihii deegaanka oo si sharciga ku dhisma usan jirin saa darteed wasaaradda arrimaha guduhu ha la timaado hana dhaqaajiso hawsheeda qorshe cad way leedahay waa hubaa laakiin dhaqaajin iyo dardargelin bisaa looga fadhiyaa meel kasta ama qaab kasta oo ay rabaan inaan ka kaalmayno na gacan baan ka siinaynaa waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo markay tahay deeq aan helnay ama aan gacan aan helnay ama wax soo saarka galmudug ha noqdo gudaheeda inta ay u baahan yihiin percentage-ka na laga rabo dowladda galmudug inay ku darto barnaamijkan horumarinta dowladda galmudug diyaar bay la tahay inay ku darto oo ay fuliso marka looma istaagayo inta nooga soo aada gacanta nala siiyo inta nooga soo aadaahay ma noqon doonto wax dib u dhaca ama sabab u noqda inuu waxqabadka uu u hakado laga bilaabo caaway waxaan dhaqaajinay noo furan noo meel maray u fadhinaa inuu dardar ku socdo barnaamijkii hanaankii dowladda dejinta dhinac walba inuu ka socdo oo sidii lagu talagalay u socdo aynan hoggaankii laga rabay iyo hawshaan u xisaareen la yimaadaan golihii wasiirada xubnihii wasiirada oo madaxweyne ku-xigeenku uu jeerka u ahaa iyo hay-adihii iyo degmooyinkii ay la kaashanayeen in dhaqaajiyaan caawa noo furan tahay waxaan sugnaana waa guul iyo dhammaystir buuxa sideeya aad iyo aad baa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan mar labaad iyo mar saddexaad inkuu mahad celinayaa waan rajaynayaa inta aad u baahantihiin mar kale inaan idhaahdo ha la dedejiyo meel sharci ama nidaam ama qorshe kasta oo ka dhiman dowladda dejinta iyo hay-adda iyo dhinaca ay leedahay wasaarad kastaana waajibkeeda ha gudato dadkuna ha gaaro doorashadooda midka wax soo saarka waxay ku leeyihiin aragti waxqabadkana waxay ku leeyihiin aragti taasna caaway ayaan xarig jarnay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad guul horumar midnimo iyo wadajir macaamiil ku soo dhawow bangiga caalamiga ah ee IBS Bank bangiga IBS wuxuu kuu soo kordhiyey adeegga lacag la bixista casriga ah ee ATM haddaba si aad u isticmaasho IBS ATM fadlan raac tilmaamahan ugu horrayn geli mastercard-kaaga halka loogu talagalay dooro luuqadda aad rabto inaad ku isticmaasho tusaale ahaan English ama Soomaali si taxadar leh u geli lambarsireedkaaga hubso in qofna ku daawanaynin inta aad gelinayso binkaaga kadibna dooro lacagta aad rabto inaad la baxdo iska hubi inaadan gelin in ka badan xaddiga lacageed ee kugu jirta koontadaada dooro haa haddii aad u baahan tahay inaad hesho rasiidkaaga kadibna la bax kaadhkaaga iyo lacagtaada sidoo kale waxaad dooran kartaa cadad kale si aad u geliso lacagan kuu muuqan adigoo raacinaya eber ama dooro adeeg kale si aad u aragto haraagaaga kadibna dooro haa haddii aad u baahan tahay inaad hesho rasiidkaaga mahadsanid macmiil